qaybtan waa akhbaarta toogi adiga wada sugaysiin codsigiina ahaa markan waxa waaye ninkii saddexdii qof uu kala ogaaday labadii xumeed iyo ninkii fiicnaa wadadiis ayuu soo qaaday kuwiina xafiiska ay sii tageen xafiiska marka dhan ay tagayaanba already waxa taaganba ninkii oo sii jeeday maamulaha dhan ay ahaa waxaan ku kuwana ay kusoo baashaaleen ninkii naagtii ninka kalena oo badbaado u noqday laakiin markuu soo jeestay waxaa dhacay wax filawaa oo la yaab iyo makaa ku noqday kulligoodba inkastoo labadii qaa'in ay ugu darnaayeen naxtintooda waxaa lagu dhahay haye waxay dila noqotay kadis filawaa ma digan filanayna meesha soo maahan kusoo dhawaada xafiiska waa xafiiskayga meeshana aniga iskalaha anigaan u baahnay shaqaalaha oo idin codsaday laakiin waxaan aad uga xumahay gabadhii markii boo isku dhaxyaacdo isku dardarsanto waxay bilowday raalli ahaa aad baan uga xumahay ma ka filanaynin meeshaan baba waxa lagu yiri waan ka xumahay leeyahay saaxiib in maaragta adigoo in icaawi waayay oo lacag iga doorsaday in aad hadda iyo calaacasho saacadan calaacal meesha looma taagno kulay waxaan u baahnaay inaan awalba idin kala barto oo idin kala arko dadka aan shaqaalaysiisanayo dadka yani inaan arko dadnimadooda iyo bini'aadanimadooda waadna ku mahadsantaa lagu dhahay dee waxaad habkaad iila dhaqanteen labadiinaba aad baanba maaragtay waan idinka wasuusaa waxaan idin dhaha ma garanayo marka ninka kale oo waxaan ku waa ninkii wanaagsanaay ee badbaadada u noqday waxaan ku hantidiisana maaragtay u qaaday oo siiyay oo ana waxbana ka qayaanin waxbana dee dhibaato u geysan oo isaga naftiisii يعني بدبادة ونقطة بركة وحلو ير لبدي واد ما تسنتين وجيدي نحنا وان برتي عكت صار وضده نينكي كلا لو ير ورنيه هو مدح صراته هاي سود وو نين وناكسن بات هاي نين waxaan ku wuri sharaf labaad tahay mudnaanta meeshaan iskale laga bilaabo saacadana xafiiskan adiga ayaan kugu wareejiyay ku soo dhawow hawshaada iyo xafiiskaaga waxa waaye de wad sharfanta lagu yiri sharaf iyo karaamo saaxiib adiga qof aan ahayn buu uma qalmo xilka marka